halkan waxaan rabaa aan baaq ugu diro dowladda federaalka Soomaaliyeed ugu horeeyo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe. Axmed waxaan leeyahay Axmed intaad Jubbaland soo xukumi lahayd waa soo xukuntay, waxaad qaban lahaydna waa qabatay, waxaad hadlayn lahaydna waa hadlaysay, waxaad tabar iyo awood u weydana de waqtigooda waa dhamaaday. maanta waxa loo baahan yahay inaad Jubbaland uga tagtay taariikh wax badan baad dowladda federaalka ku eedeysay madaxdooda inay taariikh dalkan uga tagaan. maanta waxa laga rabaa inaad taariikh uga tagtid. suurtagal ma noqon karto in Jubbaland shacabkuna waa diiday, hadday leeyihiin siyaasiyiin, hadday oday dhaqameed leeyihiin, hadday culimo leeyihiin, way diideen inay 3 xildhibaan keenaan mid lagala baxo. maamul goboleedna laguma dooran, dowladda federaalkana laguma dooran. marka Jubbaland wax ka duwan waxa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka doorashada ku yimaadeen wax ka duwan suurtagal ma noqon karto. waxaad loo baahan yahay inaad kalsooni isku qabtid. Axmed ku kalsoonow shacabka Jubbaland, xildhibaanada Jubbaland ku kalsoonow, waxgaradka ku kalsoonow, siyaasiyiinta ku kalsoonow. haddii aad doorashada ku guuleysatana hada calafku Ilaahay ku siiyo waa ummaddu diyaar ba u tahay inay kula shaqeyso. haddii laga guuleysana hada faatixada lagu marhayaa waana lagu ama bixinayaa hada oday soo shaqeeyaa tahay oo Jubbaland wax ka soo qabtay. taas waxaan waqtigan leeyahay Axmed dowladda federaalka ugu horeeya madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed baa tahay, waad maqlaysaa qayladhaanta ka soo yeeraysa iyo xaalka Kismaayo maanta uu ku sugan yahay arin aad u qalafsan oo qurxonayn baa ka soo yeeraysa. mas'uul baa ku saaran madaxweyne, mas'uuliyadda ku saaran inaad qaadato waa muhiim. haddii shacabkii Jubbaland hadday culimo yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiin hadday waxgarad yihiin way qayladooda waad maqlaysaa. hadday istaag kugula hadlaayeen waa kugula hadleen, fadhi waa kugula hadleen, saxaafad waa kugula hadleen. waxa loo baahan yahay madaxweyne iyo dowladda federaalka Soomaaliya dhammaanteed inaad dhageysataan baaqa ka soo yeerahaya shacabka Jubbaland oo Kismaayo sida dhaqsaha badan loo tago oo adigu madaxweyne aad tagtid ama qaybo kale wasaaradaha kamid ah dowladda federaalka Soomaaliyeed ay tagaan oo meeshaas saan dhibaato uga dhicin looga hortago. waa ogtahay haddaan warkan aan duubahayo waxa magaalada Dhuusamareeb ku sugan safiiradii Soomaaliya joogay hadday United Nations ka yihiin iyo hadday kuwa dalka kale yihiinba waxayna halkaas iyo Mareykanka ba yihiinba waxay halkaas u tageen inay ka qayb qaataan dhismaha maamulka cusub ee Galmudug ee loo dhan yahay. ra'iisul wasaarihii Bilbu fadhiya halkaas oo nabadeynta dadkaas inuu ka shaqeynayo. hadda madaxweyne inaad aan wafdi loo dirin ama adigu asan aadin Kismaayo asan aadin iyo Jubbaland aadin oo dhibaatada halkaas iyo mataqaanaa iyo waxa ka soo socda aan laga hortagin hadda wax suurtagal ma ahan. madaxweyne waxaan leenahay halkan sida ugu dhaqsaha badan wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliyeed oo adigu ugu horeyso hadday suurtagal noqdo adigu aad tagi weydo wafdi kale ama wasiiro ama ra'iisul wasaare ku xigeenka ay kuna inay tagaan oo meeshaasi xal loo heli lahaa arinta ka jirta la isku qaban laayahay wax looga qaban lahaa oo dhibaato looga hortagi lahaa. xaalku Kismaayo ka soo yeerahaya ma aha arin qurxoon ma aha. arin waxa weeye u baahan in laga hortago dhibaato, arin u baahan in shacabka loo tago loo gurmado, arin u baahan in maamulka halka ka jira ay kalaftigooda wixii qalad sameeyeen la dhaw waxaan waa qalad suurtagal ma aha. wixii de wanaaga ay sameynayaan la dhaw saana habboon oo lagu taageero si halkaas u dhacdo doorasho wanaagsan oo si wanaagsan ku dhacda qofkii Ilaahay oo calfana uu mataqaanaa uu ku guuleysto lana shaqeeyo. mar kale waxaan leeyahay Axmed kaalinta leedahay qaado, ku kalsoonow shacabkaaga iyo ummadaada ku kalsoonow. madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne suurtagal ma noqon karto inaan dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo adigu ugu horeyso inaan Kismaayo iyo Jubbaland wafti loo dirin suurtagal ma noqon karto. wixii halka ka dhaca uma baahan in la tacsi laga diro ama la dhaho suurtagal ma la dhaho mataqaanaa waxani waxa weeye si qalad ay ku dhaceen waa ka xunnahay in la dhaamaan. hadda mas'uuliyaddu ku saaran tahay madaxweyne sida ugu dhaqsaha badan dowladda federaalka Soomaaliyeed wafta ugu dirto Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.